dhaqaajin armaalo dhinta waa laba lamaano oo hermi ah dhaqanka miyiga Soomaalida ayaa muddooyinkii dambe waxa uu isku bedelayay muusig iyo sidoo kale dhaantooyin inkastoo dhaqankii hore oo sii lumayo labadani waa lamaane isla markaana wadajir nolosha u qaybsamaan waa wiil iyo gabar waxa ay ku nool yihiin bartamaha Galmudug qaybihiisa dambe ee baadiyaha qayb u dhow Gurceel ayay ku nool yihiin lamaanayaashan oo tuulo yar ah waxa ay markasta iska soo duubaan muuqaallo xilli ay raacayaan geela ariga iyo sidoo kale xoolaha kale maadaama ay markasta muuqaallo iska soo duubaan mararka qaar ayaa xigta xitaa inay soo galaan barta live-ka ee TikTok-ga muddooyinkii dambe dhaqanka Soomaalida waxa laga siimin guurinayay dhaqankii hermiga kaasi oo markaan la dhaqan noqonayo dhaqanka caasimadda iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka waa dhalinyaro waana laba xaas waxay ku nool yihiin tuulo u dhow ceel baldaawo waasa labadaani waxay ku qanacsan yihiin joogitaanka noloshoodu waa mid qurux badan waayo qurux badan ayay ku jiraan inkastoo weli ay dhaqanayaan xoolihii iyo sidoo kale waxyaabihii miyiga laakiin waxaad moodaa in laga siimin guurinayo dhaqanka oo markaan loo soo guurayo dhaqamadii magaalada mararka qaar waxay iska soo duubaan muuqaallo dhammaystiran kuwaasi oo u badan dhaanto iyo sidoo kale heese kale oo kuwa ka mid ah heesooyinka jaceylka mar waraysi laga qaadayo waxay dhaheen nolosheenna markaan waxay ku dhammaanaysaa inaan noqonno dadka magaalada aadka looga yaqaano bal qiyaas haddii dadkii reer miyiga ayaguna caannimo raadinayaan yaa u haraya dalkan yaase markaan xoolaha iyo sidoo kale beeraha waxyaabaha macaan ee ku jira noo soo bixinaya waxay noqonaysaa waxyaabo ku cusub guud ahaan geyiga Soomaalida oo dhan laakiin sanadadii dambe ilaa 5 sano ee ugu dambeysay geyiga Soomaalida waxaa ka soo ifbaxayay dhalinyaro Soomaaliya qaar hooyooyin ah oo dhaantooyin iyo heese kala duwan iska soo duubayo waxaase intaa ka sii daran qaar ayaa live ka soo galaya beertooda ayaga oo heese dabacsan la daaranayo dhaqanku waa min guurayaa wuxuuse u baahan yahay badbaadin dhab ah